magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegayay madasha Kasmaal sanadkeedii afraad taasi oo ka soo wareegatay xilligii dhidibada loo aasay. Xafladda waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kampala sida gudoomiyaasha jaamacadaha, ururada haweenka, dhalinyaro, nabadoono iyo wufuud ka socota dowladda federaalka Soomaaliya. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Ilyas Xaaji Cabdulaahi oo sheegay xilligii la aasaasay madasha Kasmaal iyo sababihii loo aasaasay waxyaabihii uu qabsoomay. aasaasa madasha Kasmaal taariikhda aasaasa madasha Kasmaal waxa ay ka soo bilaabanaysaa horaantii sanadii 2019 waxaana aasaasay dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ka kala socday jaamacadaha dalka Uganda. bishii koowaad ee sanadii 2019 ee January iyo bishii labaad ee sanadka 2019 ee February waxay aqoon-yahanadu ku mashquulsanaayeen kana fakirayeen nooca ay noqon lahayd madasha iyo profile-ka ay madasha qaadan lahayd iyo sidoo kale baylowgii ay ku shaqeyn lahayd madasha. waxaana si rasmi ah loo daafuray 20kii bishii March ee sanadii 2019 oo caawa ay 4 sano jirsatay. madashu waxay u taagan tahay abuuridda dood cilmiyeed dhaxalgal ah gaar ahaan mowduucyadan arrimaha nabadda iyo ammaanka, maamul wanaagga iyo federalismka, arrimaha horumarinta dhaqan-dhaqaalaha ama waxa loo yaqaano socio-economic development, danaha deegaan siyaasadeedka iyo isdhexgalka ama waxa loo yaqaano geopolitics and integration, arrimaha genderka iyo garsoorka, deegaanka iyo khayraadka isbeddelka cimilada, deegaanka khayraadka iyo isbeddelka cimilada, arrimaha diinta iyo dhaqanka. sidoo kale madashu waxay xustaa maalmo taariikheedka bulshada Soomaalida. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Said Axmed Sheekh Muuse iyo nabadoon Cabdulqaadir iyagoona madasha Kasmaal ugu hambalyeeyay shaqada hufan ay u hayaan dhalinyarada kulana dardaarmay inay intaasi ka sii horumariyaan. aan aad ugu faraxsanahay xafladan inaan ka soo qayb galo anigoo ku hadlayo magaca guud jaaliyadda salaana ugu wado hambalyan ugu wado Kasmaal Forum. waxaan leenahay hambaliyo haddaan nahay jaaliyadda guud waxaan u hambalyanaynaa sanad guurada afraad ee Kasmaal. dhalinyarada soo abaabushay waxaan isleeyahay xafladdu waxay ku saabsan tahay waa hambalyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin Kasmaal Forum. waxaan isleeyahay waqtigii la bilaabay 4 sano laga joogaa haddeertaan meesha ay marayso iyadaaba maaragtay dhiirigelin iyo hambalyo iyo horsocod ka muuqda annaguna ka hakran mayno. marka ayagana waa u mahad celinayaa xafladan iyo isku keenkan dadkan maaragtay wujuuhdan kala duwan iyo juhdiga badan ay ku bixiyeen waa u mahad celinayaa. Siham Roora ee gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa iyaduna dhankeeda sanad guurada la wadaagtay madasha Kasmaal. waan ku faraxsanahay caawa inaan kala soo qayb galo Kasmaal Forum maxaa la yiraahdaa sanad guuradooda afraad. waxaana leeyahay hambaliyo wax walba waxay ka bilowdaan dhibic fakar iyo in wax walba maalin maashi ka dambaysa lagu sii daro. xafladdu intii socotay waxaa lagu soo bandhigay waqtigii nasiib ay ka qayb qaadanayeen martidii ka soo qayb gashay. sidoo kale waxaa halkaasi lagu soo bandhigay cayaar dhaqameed. agaasimaha shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxiin Shuuriye Axmed ayaa madasha ka hadlay kuna booriyay hoggaanka Kasmaal inay intaasi ka sii balaariyaan ayna hore u sii wadaan madasha. madasha halkaan ugu casuuntay martiqaadka noo fidisay walaaltinimada noo muujisay kalgacaylka noo muujisay wayna idinkaga mahad celinaynaa casuumaadda aan casuuntayn maada idinka gaarto. sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa aasaasiyaasha madasha oo aasaasay intii la soo shaqaysay. sidaan ognahay wax kastoo la qabanayo shakhsi bay ka yimaadaan
kama wada yimaadaan dadka waxaan u mahad celinayaa shaqsigii ay ka soo maaxaday in la aasaaso madashaan soo bandhigay saaxiibadiis u soo bandhigay la wadaagay kana aqbaleen ayagana waa ku mahadsan yihiin aqbalaadda aqbalayn mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa bulshada Kampala ay madashii markii la soo aasaasay isugu timid halkan ayagana aqbaleen madashooda garab istaageen maanta halkan ku wada fadhiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin ugu dambeyn waa xafladda soo xiray Abubakar Cali Nuur xogayaha ururka Kasmaal Forum 20 March 2019 halkaana laga daafuray isla hoolkaana lagu daafuray caawa oo 20 Maars ah 2023dana waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradii afraad madashu waxay ku guuleysatay in marka koobaad ay ka hesho dalkan ay martida aan ku nahay ee Uganda aqoonsi sharciyadeed oo ah inaan qaban karno doodo iyo barnaamijyo quseeya waxa ku cad boorkeena iyo profilkeena madashu waxay ku guuleysatay inay qabato dhibeedyo xiiso leh oo lagu martigeliyay heer wasiirada dowladda federaalka ah heer madaxda maamul goboleedyada ah heer aqoon-yahano ah heer saraakiil ciidan leh heer xildhibaano leh heer degmooyin leh heer aqoon-yahano leh heer arday in fursad la siiyo runtii madashu waxay gaartay muddada 4 sano guulo aad u qiimo badan oo isballaarin ah waxa magaalada Muqdisho laga daafuray xarunteedii labaad oo hadda ayadana ay ka socoto qabanqaabadeeda sanad guurada waxa sidoo kale laga daafuray dalka Turkiya iyo dalka Egypt marka waxaan rabaa waxqabadkeedii iyo qorshaheedii waxa soo jeediyay madaxa dhaqanka ee madasha anoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha Shaafici Cali Nugaal oo caawa maqan anoo ku hadlaya golaha boodka aasaasiyaasha madasha oo aan ka mid ahaa anoo ku hadlaya magaca bahda hogaaminta Kasmaal Forum waxaan idin leeyahay marka koobaad meel kasta oo ay joogtaan sanad guuro wacan hambaliyo